بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا ونكسد وديال halkan waa telefishinka Talsan Muqdisho waxaan ka soo gudbinayaa barnaamijka faqaad ciyaaraha waa isniin taariikh waxay ku beegan tahay 26 bisha 8 sanadka 2020 warbixinta qaas soo barnaamijka ku soo qaadan doona waxaan qayb ka ah kooxda kubadda cagta PSG oo hoos u dhigtay qiimihii ay ku doonaysay goolaha Gianluigi Donnarumma xilli xiiso weyn laacibkan uu ka helayo kooxaha ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League barnaamijka ku soo qaadan doona sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa tababaraha Liverpool waxa uu rajo weyn ka qabaa Alex McAllister inuu ciyaari doono kulanka Arsenal ee xad soo aaday barnaamijka ku soo qaadan doona sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Manchester United Kobe Mainoo waxa uu ku sii dhawaanayaa ama laga yaabaa inuu ka dhaqaaqo kooxda kubadda cagta Manchester United iyadoo kooxaha waaweyn laacibkan ay xiiseynayaan in barnaamijka saaxiib ku soo qaadan doona sidoo kale waxaan eegi doonaa Liverpool oo guul xiriir ah ka gaartay kooxda kubadda cagta Newcastle United kulan qayb ka ahaa horyaalka kubadda Ingiriiska ee Premier League waxay kulankaas laga soo calaamadeeyay ayaa sidoo kale barnaamijka saaxiib ku soo qaadan doona ku bilaabo barnaamijka faqada ciyaaraha Dalsan TV kooxda kubadda cagta PSG ayaa lagu soo warmayaa inay hoos u dhigtay qiimaha ay ku doonayso golayaheeda lagu magacaabo Gianluigi Donnarumma xilli golayahan xiiso weyn oo ka helayo kooxaha waaweyn oo ka ciyaara horyaalka kubadda Ingiriiska ee Premier League Donnarumma ayaa qarka u saaran inuu ugu dambeyntii uu macsalaameeyo kooxda kubadda cagta PSG inta ka harsan suuqa kaliiska ciyaartooyda ee xagaagan kooxda kubadda cagta PSG ayaa lagu soo waramayaa inay hoos u dhigtay qiimaha ay ku doonaysay golayaheeda reer Talyaani ee Gianluigi Donnarumma xilli uu xiiso ka helayo kooxda kubadda cagta Manchester City ee ka ciyaarta horyaalka kubadda Ingiriiska ee Premier League Donnarumma oo 26 jir ah ayaa lala xiriirinayaa muwaadiniinta kuwaas oo doonaya inay keenaan golayo kale hadii uu ka tago kooxda Anderson golayaha lagu magacaabo sida laga soo xigtay RMC Sport kooxda haysata tartanka xiisaha badan UEFA Champions League waxay hoos u dhigeen qiimahooda min 43 ilaa inta u dhaxaysa 26 milyan iyo 30 milyan iyadoo Donnarumma uu kaliya hal sano uga haray qandaraaska uu kula jiro kooxda ka dhisan caasimadda Faransiiska ee PSG Fabrizio Romano ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in heshiiska shakhsiga ah ay isla afkarteen Donnarumma iyo kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoo heshiiska suurtagalka ah uu u muuqdo mid soo dhow imaanshaha Donnarumma ee suurtagalka ah waxa uu imaan karaa marka iib loo helo golayaha koowaad ee kooxda kubadda cagta Manchester City ninka lagu magacaabo Ederson Daily Mail ayaa waxa ay daa ka qaaday axadii in Galatasaray la filayo inay dib u cusboonaysiiso xiisaha ama xiriirka ay la leedahay Manchester City golayaheeda Ederson kadib markii kursiga keedka la dhigay guuldaradii Manchester City toddobaadkan ka soo gaartay kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur bedelka Ederson ee James Trafford ayaa qalad galay taasoo keentay in Spurs ay 3 dhibcood ka soo qaadato kooxda kubadda cagta Manchester City ciyaartii ka dhacday garoonka Etihad Stadium Pep Guardiola ayaa si joogto ah waxa uga hadlay golayaashiisa oo u baahan in ay ku dhiiradaan kubadda cagta laakiin waxa uu gaabsaday in uu sheego in Trafford uu ahaan doono dooqa koowaad ee kooxda Trafford waxa uu sameeyay ciyaar wanaagsan kulankii ugu horeeyay Guardiola ayaa yiri golayaha 22 jirka ah kaas oo shabaqa ilaashaday kulankii Manchester City 4 gool waxba ee kaga adkaatay kooxda kubadda cagta Wolverhampton isbuucii furitaanka horyaalka kubadda Ingiriiska ee Premier League oo ay ka ciyaartay kooxda kubadda cagta Manchester City iyadoo guul weyn xilliga ka gaartay naadiga Wolverhampton ciyaartii ka dhacday garoonka lagu magacaabo ay ku ciyaartay kooxda kubadda cagta Wolverhampton ee Millennium Stadium Anderson ayaa isagu waxa uu yahay ciyaartoy si weyn loola xiriirinayo inuu ka tago kooxda kubadda cagta ee Manchester City isagoo markaa hadlayay bandhigii golayaha James Trafford tababare Pep Guardiola wuxuu yiri waxaan go'aansaday isaga inuu sii wado marka aan qaato go'aamo sida caadiga ah qaybta hore xiliyaareedka ma aha oo kaliya golayaha maadaama golayuhu yahay boos gaar ah iyo hadalkiisii raaciyay Pep Guardiola Ederson hal sano ayaa ugu hartay qandaraaska uu kula jiro Manchester City waxaana dalabkii ugu horeeyay ee Galatasaray uu ahaa ku dhawaad 8.5 milyan oo kani taasoo aan loo arkin mid ku filan kooxda kubadda cagta Manchester City waxay dan iyo markaasi ay aad u wiiqeen xulashooyin kale iyadoo markaasi kooxda kubadda cagta Galatasaray Manchester City sidoo kale ka doonaysa ninka lagu magacaabo Manuel Akanji kaasi oo daafac kaga ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester City isla markaana ay aad u xiiseynayso kooxda kubadda cagta Galatasaray City ayaa wali waxay rabtaa inay iska iibiso Ederson kadibna ay la soo wareegto golayaha kooxda kubadda cagta PSG Gianluigi Donnarumma ninka lagu magacaabo kaas oo xiiso weyn isaguna ka helaya kooxda kubadda cagta Manchester City garoonka ku ciyaarto Etihad Stadium dhinaca kale tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool waxa lagu soo waramayaa in uu rajo weyn ka qabo in Alex McAllister uu helo kulanka Arsenal axad soo aatan ay ku martigelin doonto garoonka Anfield ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaartaas ayana waxay tahay ciyaar si weyn isha lagu hayo tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Arne Slot ayaa waxa la sheegay inuu rajo weyn uga qabo in qadka dhexe ee kooxdiisa Alex McAllister uu diyaar u noqdo kulanka adag ee Premier League xataa soo aadan Liverpool garoonka Anfield ay ku martiqaadayso kooxda kubadda cagta Arsenal
McAllister ayaa ka maqnaa guushii Liverpool xalay ay ka gaartay kooxda kubadda cagta Newcastle United ciyaartii kusoo dhamaatay 3-2 si kastaba noqotee Arne Slot ayaa ku adkaystay in dhaawaca uusan ahayn mid culus isagoo shirkiisa jiraayada ciyaarta kadib sheegay waxaan rajeynayaa inuu diyaar u noqdo 2 maalmood ka hor ayuu tababarka ka baxay haddii uu heli lahaa xil ciyaareed hore oo dhameystiran ma noqon lahayn dhibaato weyn laakiin muddo badan oo uu maqnaataasi waa sababta jirkiisu uu dareemay xanuun ayuu yiri tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool Arne Slot marka la eego xil ciyaareedka oo aad u dheer wali waa uu socdaa waxay had iyo jeer khatar ay keeni kartaa ama waa soo celin kartaa in isaga mar kale uu Newcastle kulankii haddii uu ciyaari lahaa uu dhaawac soo gaaro laakiin waxaan rajeynayaa in maalmaha soo socda xaaladiisu ay soo fiicnaato si uu diyaar ugu noqdo kulanka axad soo aatan kooxda kubadda cagta Liverpool Anfield lagu ciyaarayso naadiga lagu magacaabo Arsenal ciyaar qaybka ah horyaalka kubadda Ingiriiska ee Premier League toddobaadkii saddexaad Alister ayaana isagu wuxuu yahay mid muhiim u ah naadiga Liverpool kulamada ay ciyaarayso iyadoo xalay kulankii uu maqnaana laga dareemay naadiga Liverpool boos weyn inuu ka maqan yahay inkastoo tababaruhu rajo weyn ka qabo inuu laacibkan diyaar u yahay kulanka soo socda inuu ciyaaro kulanka Arsenal ay ciyaarayso kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaarta ka dhici doonta garoonka Anfield dhinaca kale qadka dhexe ee kooxda kubadda cagta Manchester United Kobe Mainoo waxaa lagu soo waramayaa inuu ka fikirayo inuu ka tago garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto Manchester iyadoo laacibkan kooxo waaweyn ay xiiseynayaan walina waxa uu ku wareersan yahay laacibkan boos joogta uu ka helo garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Manchester kooxo waaweyn ayaana xiiseynaya laacibkani Kobe Mainoo ayaa la xiriirinayaa in uu si lama filaan ah uga dhaqaaqo naadiga lagu magacaabo Manchester kuna biiro Leeds United iyadoo ila sare oo ay ku jiraan David Ornstein iyo Andy Martin ay bixiyeen warar cusub oo ku saabsan mustaqbalka laacibka Manchester Kobe Mainoo ayaa xiliyaareedkii 2023-2024 waxa uu bandhig cajiib ah ku qaatay garoonka Old Trafford isagoo u saftay 32 kulan tartamada oo dhan laacibkan qadka dhexe waxaana uu isku dhigay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta Manchester United Mainoo waxa uu dhaliyay goolkii FA Cup-ka oo ay Manchester United koobka kaga qaatay kooxda kubadda cagta Manchester City waana koobkii 13aad taariikhdooda ay ku guuleystaan tartanka faca weyn ee FA Cup-ha Mainoo waxa uu ciyaaray 37 kulan xiliyaareedkii hore si kastaba noqotee 20 sano jirkan waxaa carqaladeeyay dhaawacyo halka sidoo kale uu tababare Ruben Amorim boos joogta ah uu sii leeyahay laacibkan ayaana waxaa la leeyahay waxaa macquul ah inta ka harsan suuqibka ciyaartoyda inuu kabi ahaanba faaruujiyo garoonka Old Trafford oo ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta Manchester United xiise waaweyn ayuuna ka helayaa kooxo ay ka mid yihiin Tottenham Hotspur Chelsea Brentford Fulham iyo Brighton ayaa ka mid ah kooxo xiiseynaya balse warbixinada ugu dambeeyay waxay sheegayaan in Leeds United uu amaah ugu biiri karo inta ka harsan suuqibka ciyaartoyda ee xayaagan ugu dambeyntii kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guul muhiim ah xalay waxay ka gaartay naadiga Newcastle ciyaar qayb ka ah horyaalka Premier League kulankan ayaa ka dhacay garoonka St James Park oo ay ku ciyaarto Liverpool ciyaartan ayaa waxay ku soo dhamaatay 3-2 oo guul ciriiri ah ee Liverpool ka gaartay naadiga Newcastle kulankii St James Park ka dhacay Newcastle ayaana waxaa roose ka qaaday laacibkeeda lagu magacaabo Anthony Gordon kaasi oo qalad ku sameeyay kabtanka Liverpool Virgil van Dijk ugu dambeyntii Liverpool guul ciriiri ah 3-2 ay ka gaartay kooxda kubadda cagta Newcastle ciyaartii ka dhacday St James Park iyadoo wali Liverpool ay tahay koox unbeaten ah labadii kulan ee ugu dambeeyayna waxay tahay mid iyadoo adkaatay iyadoo kulankii furitaanka ka soo adkaatay kooxda kubadda cagta Bournemouth guudaan daawadayaal inta ay ku soo gudbinaya barnaamijka faqaad ciyaaraha Dalsan TV barnaamijka mid lamid ah kulmi doona nabadgelyo